haddii inta ilmihii aad wadid aad geysid Soomaaliya ama meel kamid ah Afrika aad soo celisid oo lagu ogaado ugu yaraan 12 sano xariga ha helaysa ilaa iyo 78,000 oo macnaa muxuu ahaaye oo ganaaxana waa helaysa horta barnaamijkan oo ah muxuu ahaaye guud ahaan gudniinka gabdhaha adiga muddo ilaa 20 sano ka badan ayaan wadnay afsan ayaana bilowday adiga sanadkii 96 adiga waagay Soomaalida halkan soo galeen oo 93 sharci cusub la keenay marka waa ogtaa dad badan oo Soomaaliyeed ayaa yimid macnaa aakhirkii iyo dhaxdii muxuu ahaa 90-meeyadii su'aalihii ugu weynaa inuu weydiiyeen markaas waxay ahayd xagee gabdhahan aan ku gudanaa waxyaalahaas ayaa keenay marka sidaa daraadeed afsan markaas ayaa la aas-aasay oo muxuu ahaayay oo waa aan cusbeen hal macnaa lama aqoonan afkan macnaa Nederlandiga ah markaas ay danta waxay nagu qasabtay gaar ahaan aniga markaas waan jooga wadankan waxbaan ku baranayay marka waxaan dhahnay in markaas waxaan ku soo biiray ururkan afsan ah as faravilaq macnaa volunteer ahaan markaasaan meel ka bilownay kulleyba aan Soomaali ku bilownaan dhahnay wasaaradda caafimaadka ayaan barnaamijka ula tagnay saas ayaan horta ku bilownay oo muxuu ahaay ilaa hal sano ay bar ayayna siiyeen oo dadka loogu sheegay inuu wadankan sharci ka jiro iyo dhibaatooyinka guud uu leeyahay ee arintan marka arintii markay socotay adiga 2005 ayaan waxaan macnaa aqoontii aan ka qaadanay macnaa Soomaalida ayaa waxa noogu dhawaatay Suudaan oo iyagana barnaamijkan aad u isticmaala kabacdi Suudaan ayaan macnaa muxuu ahaayay aan ku biirinay kabacdi Afrikaanka kale oo gaar ahaan u badan Afrikada galbeed iyo Ethiopia ama Eritrea Afrikadan muxuu ahaayay bari ayaan ku beer hadda maanta waxay maraysaa ilaa 300 oo qofood inaan macnaa tababarnay oo hataa ku jiraan Iraq Kurdis iyo wax la mid ah marka maantadan aan macnaa muxuu ahaayay wixii macnaa ka bilowday ilaa 2000 aan dhaheed 21kii waxaan bilownaa barnaamijkan waxaan dhahnay gudniinka kaliya kuma ekaanayne caadooyinka xun oo guud ahaan inaan gaarno waayo waxaan ugu jiray awal qolooyinka imaada Iraq Kurdis way sameeyaan ayagaba dad laakiin sideedaba macnaa waxay dhahan waxaan ugu badan guurka qasabka ah iyo arrimahan qoyska sharaftooda oo honor killing la yiraahdo ama eerka la tiirta qabaad arrimahaas ayaa ku badan wasaaraddan marka u tagna waxaan arrimahan gudniinka waa wadaynaa laakiin codsiga wuxuu ka yimid macnaa dadka kale waa inaan ku darnaa barnaamijyada wasaaradana saas ayay noogu yeeshay marka hadda Afrika kaliya ma aan haynay hataa qolooyinkan kale oo Syriyiinta ama Iraq Kurdishka waxyaalahaas oo dhan waa ku wada darnay Yemen dad badan ayaa nagu jira horta West Africa markii la yiraahdo waxa u badan iyo East Africa arrimahan gudniinka ku badan way kala duwan yihiin waxa kale oo anaga oo arintan soo raacday sida ma aragtay caruurta dhaqan celinta loo celinayo hataa West Africa oo muxuu ahaa galbeedka Afrika waa ku badan yihiin iyo muxuu ahaayay Soomaalida hataa dhaqan celinta waa ugu badan tahay iyo Asian badan oo dhinacan Afghanistan ee ka yimid laakiin qolooyinkan kale oo waayadan dambe wadanka soo gala oo Syrianka u badan waxa ku badan dil sharafeedka iyo guurka qasabka ayaa ku badan iyaga iyo Iraq Kurdiska ah hada Syria gudniin shaqo kuma balaha marka wadanka saba meel ayuu u badan yahay macnaa muxuu mowduucyadan sida macnaa guurka qasabka ah dhaqan celinta dil sharafeedkaas gudniinka Afrika gudniinka ku badan haddana hadda Soomaali haddana anaga waxaan ugu badan barnaamijkan dhaqan celinta la yiraahdo caruurta la celinayo marka wadanka saba waxba ayaa u daran laakiin kulligood salkooda hadaad fiiridid waa isku ujeedo ama ilmi macnaa muxuu ilmiyo la dhaqan celinayo macnaa waaridka runtii waxay ka wadaan Axmedow meel fiican macnaa ilmihi ayay u wadaan oo ayaga kama wadaan inay ilmahooda macnaa saxariirinayaan ama dhibaateynayaan ama waxaan leeyahay kinder mishandling sida u taqaanido ciidan ku magacaado kama ay wadaan dhan fiican ayay u fiiriyaan laakiin intaas ayaa muxuu ahaay waxa kale oo macnaa oo aad macnaa muxuu ahaay oo aan ugu dadaalnay si dadkaani ay informationka luqadooda hooy ugu gaarsiin lahaayeen dadka kale taas ayaa faa'iido training waxa waay afdhac ayaa lagu qaataa laakiin hadhoodii macnaa muxuu ahaayay dadkan waa iska volunteer siday dadkooda ugu gaarsiin lahaayeen afkooda hooy ayaan ku dadaalnay ama horta waxa ay la shaqeynaa run hadii laga bilaabo muxuu maamulka afsan ama dastuurka la yiraahdo runtii garab uu siiyay iyo macnaa arrimahan inuu ii madax banaaneeyo oo macnaa aan shaqada sidii la tashi waa jira laakiin macnaa muxuu ahaayay waa ku amaanan yihiin runtii siday ay igu fududeeyeen runtii mideeda kale waxaan la shaqeeyaa aniga muxuu ahaay
qolooyinkan wacyigeliyaasha oo wadamada dhan ka yimid na si fiican ayaa tababar hata ayaga waan u ahay waan la shaqeeyaa qof kaliya wax ma samayn karo guud ahaan waxaan la shaqeynaa muxuu ahaay afsan ahaan ururka la yiraahdo Faros iyo waxaan la shaqeynaa khaykhaydeeda iyo ururada khaykhayda iyo macnaha hay'adan khaykhaydeeda la yiraahdo oo wadanka ka dhisan kuwan maaragta Faylaqtaas la yiraahdo kuwa yoqt qozontahay la yiraahdo caruurta qaabilsan ee dhaqaatiirta dhan anaga intaas kaliya ma nihin anaga kaliya wacyigeli ma siinay tababar ayaan siinaa waayo anaga yaa aqoonti dhaqankeena naqaana aqoonta ay u baahan yihiin anagaana naqaana waayo wax kasta oo wadankan la sameeyay sharci ayuu leeyahay sharci la'aan ma jirto gudniinka 93 waa 31 sano ka hor ayaa wadanka laga mamnuucay nooc kasta gudniin ah hadaan macnaa muxuu ahaay aan lagu sameyn karo ilmihi yar hatta hadii inta ilmihi aawdid aad geeysid Soomaaliya ama meel kamid ah Afrika aad soo celisid oo lagu ogaado ugu yaraan 12 sano xariga ha helaysa ilaa iyo 78 oo macnaa muxuu ahaay oo ganaaxan waa helaysa mideeda kale muxuu ahaa guurkan qasabka ah ama muxuu ahaa ilmahan macnaa la celinayo kulli sharciga ka yaala qofku waaridka ah ilmihiisa meel ka sugu la degi kara Axmed wuu wada kara adaa mas'uulka ah laakiin ilmihi waxa la rabaa iskool ma qabaan dugsi ma dhigtaan caafimaad ma leeyihiin waxyaalaha asaasiga ah nolosha oo u baahnaa ilmihi ma helayaan laakiin waaridka xaq waa u leeyahay ilmihi Soomaaliya waa u la noqon kara laakiin ujeedada waxa waa cunugaas xafidaad ma helaya ma aha inaad inta meel college aad ku turtid aad ka soo tagtid oo telefoonka aad ka qaadatid macnaa muxuu ahaa bank baski aad ka qaadatid waxyaalahaas la diidaya laakiin ilmaha haday nolol fiican haystaan oo wali waxa laga sii jecel waaridku la joogan dawladda kama soo horjeedo laakiin hadii kale macnaa muxuu ahaa guurkan qasabka oo gabar ah ama wiil aan wax ogeyn aad waxaysid macnaa artikalaas kulligood ka wada yaala sharci ilaalinaya annaga marka waxa nagu waajib ah sharciyadaas jira inaan dadka u sheegno aqoon jiraan sharciyadan ka hortag ayaan nahay annaga sharciyadana jira waa ina iska jirtaan adiga kama wadi wax xun laakiin sharcigaas jira ilmaha waa la guuri kartaa meel kasta la degi kartaa laakiin ilmihi waa inay iskool helaan dugsi helaan macnaa aqoonti helaan caafimaad helaan taas waa ujeedada marka anaga waxaan ugu waajibay in sharciyada jira wadankan in ma aan u sheegno in muxuu ahaayay haday dhibaato iyaga la soo kulanta meelahay kala xiriiri lahaayeen aan u tilmaamno aan u sheegno aniga waxaan macnaa ku tali lahay arintan in macnaa waqti dheer la siiyo hadayba diideen in lacag joogto ah la siiyo oo macnaa ay ku sii socdaan mid kale waxa waaye howlo badan ayaa socda oo ka socda ayaga hay'adahooda kuwan macnaa muxuu ah lacagta joogtada qaata hatta ha lagu daro iyadii si macnaa arintan hadii mashaariic laga maarmi waayo oo lagu sii waayo oo macnaa la sii socodsi waayo waa in waxyaalaha jira macnaa looga dhigaa waxaan la yiraahdo boorkt oo macnaa muxuu ahaayay oo sustainable laga dhigaa wixii siday u socdaan taas aniga soo jeedi lahay waayo halkaan maaragtay fuluqtilen verka howlay wada khaykhaydeeda xoolay wada meel kasta waxbay wada markaad aragtid wixii maaragtay kinder misandalinka kulli waa ugu jiraan laakiin gudniinka ama arimahan oo kale waxay u arkaan wax ajaanib wadato oo wax ayaga aad uga fog oo macnaa muxuu ahaa shaqo ayaga aan ku lahayn wixiina waa mashaariic marka haday dawladda macnaa waxyaalahan jira ama macnaa barnaamijyadan ay iyaga ay subsidy gareeyaan inay macnaa taas waa xal inay macnaa muxuu ahaay ay galiyaan ama dadkan isloota barsoonada oo la doortay oo intaas oo sano shaqeynayay intoodi macnaa ugu macnaa aqoonta badan in macnaa muxuu meel focal point loo sameeyaa lacag rasmiya oo continuate macnaa oo socotana in macnaa la siiyo oo arintii macnaa annagana aan saas ay kula shaqeeyaan ama mustaqbalka dadka imaadoona ay kula shaqeeyaan hay'adaha kale oo jira oo macnaa oo la joogteeyo oo muxuu ahaayay dad macnaa ama qamiitiga sameyn karta ama dawladda dhaxa sameyn karta oo sida qolooyinkan oo muxuu ahaayay hay'adaha kale oo Kennedy Centrum-ka la yiraahdo sida lacag loo siiyo in la siiyo marka dhalinyarada waxay ay diidayaan waxaan ay hubin oo mashaariicda ah laakiin haday hubaan hatta ilaa 5 sano inay joogayaan way kula shaqeeylaan dhalinyaro badanna way nala shaqeeyda runtii oo kadib naga tagtay kuwana hadda way nala joogan marka saas ayaan isleeyahay dhalinyaradana sabar ma laho annaga macnaa waxa waaye waa dad waaweyn aan nahayo waxaan naqaanaa muxuu ahaa sharciyada laakiin qofkan dhalinta yar oo muxuu ahaa raba inuu mustaqbal sameeyo hada meel hubin ma joogi kara Axmed waa inay meeshii waxooda ay u cadahay
siiba dhalinyarada ama inta ku dhalata ama ku korto waa inay wax cad ay haystaan ay marka dhalinyaradu waxay ka raadsanayaan shaqo macnaha muxuu ahaayay oo kale laakiin anaga diyaar aan u nahay wixii bari ka bilowday inaan ku wareejino si hawshu u sii socoto saaranalay guul ayaan ku rajaynaynaa waanad ku mahadsantahay waqtigaadna siisay insha allah waa mahadsantahay axmed iyo tiimkaada kula socda